بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kula wanaagsan halkan waa warbaahinta haye kamid meel soo joogteen waxay direenahay waqtiga hadii wacnaado. أولا أقول هذه الكلمة الانفصاليين، نحن لا انفصاليين، نحن دولة مستقلة، وكنا دولة مستقلة مدة 34 سنة. markale daawadayaal kula wanaagsan xubinteena waxaan kasoo qaadanaynaa xisbul xaakimka Somaliland oo ka gaabsaday mar wax laga weydiiyay mowqifka Somaliland ee dhaqaatiinta Israa'iil saartay in ka badan 2 milyan oo Falastiini ku nool deegaanada marinka Gaza. Gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo xalay wareysi qaas ah si telefishinka Al Jazeera mubashir ayaa wax laga weydiiyay aqoonsiga Israa'iil Somaliland saldhig military ay Israa'iil ku yeelanayso Berbera iyo cunaqabateynta Israa'iil ku hayaan dadka reer Falastiin iyo xiriirka Somaliland iyo dalalka Carabta. Gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland waxa uu ka dhiidhiyay ereyga gooni-goosadka infisaaliyiin isagoo xusay inaysan iyagu ahayn gooni-goosad balse ay Somaliland tahay dal xor ah oo muddo 34 sano xorriyadiisa haysta. Gudoomiye Xirsi waxaa kaloo wax laga weydiiyey xiriirka Somaliland Israa'iil wuxuuna ka dooday inay dowlad badan oo Carabeed iyo kuwa Islaamiga ay xiriir diblomaasi iyo mid dhaqaale ay la leeyihiin Israa'iil isagoo tusaale soo qaatay xiriirka ay Masar, Turkiya, Urdun, Imaaraadka Carabta, Morocco iyo kuwa kale ay la leeyihiin Israa'iil. Hagaajinta xiriirka Somaliland Israa'iil waxba kama duwan xiriirka siyaasadeed dhaqaale ee dowlad badan oo Carab iyo Islaam ah la leeyihiin Israa'iil. Tusaale ahaan dowladaha Masar, Turkiga, Urdun, Imaaraadka Carabta, Morocco iyo kuwa kale ayaa xiriir diblomaasi la leh Israa'iil. annagana Soomaali ahaan haatan looma furna xulasho kale oo aan ka ahayn inaan soo dhaweyno dowlad kasta oo aqoonsata xaqa ictiraafka ee Somaliland, ayuu yiri gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland. mar waxa laga weydiiyay waxa Soomaaliya ku qasbay inay Israa'iil noqoto dowladda ugu horeysay ee aqoonsata Somaliland iyadoo la ogaayay in Israa'iil xoog ku haystaan Falastiin isla markaana ay xasuuq u geysteen muslimiin badan oo ku nool Falastiin, Yemen iyo dalal kale. wuxuu Xirsi Cali Xaaji Xasan sheegay inaysan ahayn sidii wariyaha hadalku dhigay. akhi Axmed ama walaal Axmed, mowduuca aad ku sheegay dilka saas iyo saas alxamdulillah xilliga dagaalkii Gaza waa ka joogsaday fadliga hindisaha madaxweyne Trump ee ay dhinacyada kooxaha ku saxiixeen Sharm el-Sheikh bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. waxaan ku boorinayaa kooxaha Axmed Joonta inay ilaaliyaan, ayuu yiri Xirsi Cali Xaaji Xasan. wuxuu intaas ku daray in si rasmi ah u agidi doonaan hindisaha Donald Trump kuna dhawaaqi doonaan si rasmi ah mowqifkooda iyo mowqif Somaliland yahay in xabadda la joojiyo. waxaa laga weydiiyey mowqifka Somaliland ee cunaqabateynta xilligan ay ixtiraalka Israa'iil saareen 2 milyan qof oo Falastiiniin ah oo aan haysan cunto iyo daawo. wuxuu gudoomiye xisbiga wadani ee hay'adda Somaliland ku jawaabay, Somaliland way ka fogtahay dhibaatada aad sheegtay, waxaana Israa'iil kala hadleen oo kaliya cilaaqaadka rasmiga aan yeelanayno, laakiin dagaalka aad sheegayso waa naga fog yahay. wareysiga qaaday waxa uu sii raacay su'aal ku aadan calanka Somaliland waxaa ku qoran tawxiidka, ma waxaad leedahay wax xiriir ah lama lehin 2 milyan Falastiin ee xayiraadda saaray cunto, daawo iyo wax kale aan haysan. wuxuu gudoomiyaha xisbul xaakimka ku jawaabay, akhi Axmed ama walaal Axmed, annaga waa dhahnaa laa ilaaha illallah. yacni weydii su-aashaasi dowladda Masar, adiga waxaa tahay Masri, dowladka Masaarida waa u dhow yihiin Rafax, laakiin annaga waa ka fognahay. waa maxay diidmada Masar? wariyuhu wuxuu kaloo sii weydiiyey, Masar way diiday inay Israa'iil saldhig military ku yeeshaan gudaha Masar ee su-aasheedu waxay haatan tahay, ma ogolaateen gobolkiina in saldhig military ay ka dhistaan Israa'iil dhulkiina? wuxuu Xirsi Xaaji Cali kaga jawaabay su-aashaasi, weli ilaa haatan ma ogolaanin, waxaana haatan isku waafaqnay ma jiraan. waxaan ka wada shaqaynaynaa arrimaha siyaasadda ictiraafka dowliga, way isbedeli karaan arrimaha, laakiin su-aashaasi haatan ma taagna. kale wariyaha Al Jazeera mubashir waxa uu Xirsi Cali Xaaji Xasan wax ka weydiiyey waxa Israa'iil ka macaashiyaan Somaliland heshiiska iyo safarkii wasiirka arrimaha dibadda ku tagay Hargeysa ma laga wada hadlay buu yiri inay saldhig military ka dhistaan Somaliland. wuxuuna gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland kaga jawaabay, walaal haatan waxaa bilowday xiriirka labada dowladood, welina lagama hadlin mowduucaasi, waa bilow. gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland waxaa kaloo wareysiga qaaska ee telefishinka Al Jazeera mubashir waxaa loogu weydiiyey haddii Israa'iil
idiin soo bandhiga codsiga saldhigga military ma aqbalaysaan. waxaanu kaga jawaabay waxaan ka hadli doonaa marka ay weydiintaas timaado, ma aha su-aasha xilliga in laisweydiiyo. gudoomiye xirsi cali xaaji waxaa kaloo oo wareysiis ku xusay inay soo dhaweynayaan xiriirka Israa'iil iyo booqashada wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, islamarkaana ay u mahad celinayaan socdaalkaasi oo uu sheegay inuu yahay mid taariikhi ah. waxaa kaloo mar kale Israa'iil u mahad celinaynaa ictiraafka in xiriirka diblomaasiyadeed loo bedelo mid rasmi ah, ayuu yiri xirsi xaaji cali xasan. oo waxaa laga weydiiyey inay warbaahinta Israa'iil baahiyeen in laga wada hadlay saldhigga military ay Israa'iil ku yeelanayaan Berbera. sidoo kale mar waxaa laga weydiiyey walaaca ururka jaamacadda carabta ee qatarta haddii Israa'iil ay galaagal u yeeshaan badda cas. wuxuu xirsi sheegay inaysan jaamacadda carabta keli wax aqoonsiya muddo 34 sano, islamarkaana aysan wax tixgelin ama waxtara siinin Somaliland. wuxuu carab ku adkaystay inay Soomaaliya taqaano sida ay u maamulaan maslaxadeeda iyo inaysan handadi doonin dalal kale. waxaa kaloo wax laga weydiiyey in maslaxadda Somaliland tahay Israa'iil. waxuu yiri ha igala hadlin qabashada ama qabsashada ixtilaalka ee aad sheegayso, ee igala hadal macaamilka dowliga iyo iskaashiga Israa'iil. dhibaatadeenu waa ictiraaf la-aanta, ayuu yiri. waxaa kaloo gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland uu codsaday in laga hadlo arrimaha siyaasadda ee aan laga hadlin arinta xasuuqa 700,000 ee Falastiiniyiin. wuxuu docda kale soo hadal qaaday xasuuq oo sheegay in dowladdii kacaanka ay Soomaaliya u geystay dadka Somaliland, isagoo ku dheeraaday arrintaasi iyo inay jiraan 200 qaboor wadareed ee dadka Somaliland ee la xasuuqay lagu aasay. mar waxaa laga weydiiyey haddii Israa'iil kala hadleen dadka Falastiiniyiinta ee loo soo doodguraynayo Somaliland, wuxuu gaashaan ku dhiftay arrintaasi. gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland waxaa kaloo wax laga weydiiyey inuu shaaciyo mowqif Somaliland ixtiraalka Israa'iil ee Falastiin. waanu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrintaasi oo wuxuu yiri igala hadal xiriirka Soomaaliya Israa'iil oo keliya. waxaa kaloo wax laga weydiiyey mowqifka Somaliland ee dilka in ka badan 700,000 oo Falastiiniyiin oo Israa'iil u geysteen. waxaana uu yiri mowqif Somaliland waa nabad, ma doonin in la dilo dad muslimiin ama dad kale. kastaba gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland waxaa qadka wareysiga lalahaa ka baxay kadib markii la weydiiyey su'aal ahayd waa maxay. أنا لم أفهم للحقيقة. آخر سؤال، موقفكم من الحصار الإسرائيلي لأكثر من 2 مليون فلسطيني الآن في قطاع غزة، ما هو؟ انقطع التواصل بيني وبين السيد حرسي علي رئيس الحزب الوطني الحاكم بجمهورية الصومال. كما ترون فجأة انقطعت سلمى، لا أعرف السبب للحقيقة لانقطاع التواصل بيننا، لكن على أي حال أشكره شكرا جزيلا حرسي علي رئيس الحزب الوطني الحاكم بما يعرف بإقليم أرض الصومال الانفصالي. inuu garqadkii u dhexeeyay isaga iyo xirsi cali, balse uusan garanayn sababta xaqiiqda. wuxuuna u mahad celiyay gudoomiyaha xisbul xaakimka Somaliland xirsi cali oo markii wareysiga la weydiinayay arkayay isagoo kombiyuutarkiisa ku mashquulsan, islamarkaana iPhone-ka dhagta ugu jirana isaga bixi kadibna waxaa soo baxday calaamadii Aljazeera taasoo muujinaysa inuu xirsi cali hawada ka baxay. daawadayaal xubintiina waa naginta ilaa kulan kale waxaan idinkaga tegaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waa warbaahinta Hayinka Media.